السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارة الشرفت له ومركلة إيه مقال عصوبرت أدنى قد داونيسانا ولا كهان ميديو برو عاو برنامج هو حمرتينه هو فنانة دوين دقيقة آدم موسى دقيقة أفرو إيوه رضوان قليل وحنا إسلاق على دقي دونا أنا سؤالنا ويدين دونا دقيقة أفرو ويوايه هدي إيوه حيابة صومري إيوه وليبا برنامج وحيس بدن أو أنت بدن سويسين أو سوشيال ميديا هو أيضا اللي صلح مريء أن سؤال كويدين دون هدي إلى هاي إدمه يولي بقى تاريخ هذا أو كوبان مركا سؤال شكواد إن شاء الله تعالى هدان كهر مرة يعني رضوان قليل نسيدا سلم إن شاء الله موسيقى كينوي سجنا إن شاء الله سؤالا ويدين دونا يحلقوا بلاوي يكسابسن يفنكيسا waayaha uu soo maray iyo waqtigiisa kala duwanaa uu soo maqaatay waxaan ku hormaraynaa insha Allah taala deeqo afro deeqo maxaad leedahay marka hore salaan dadku u jeedi ما شاء الله walaalkii Ibrahim aad iyo aad ma sha Allah waan faraxsanahay wallahi dan idin dhex fadhiyo adiga iyo musiciankayga qaaliga ah Ridwan Galeyd دي فرحة يوم دبنا عليها أنا وأنا قاعد كافدية وسلام يا مدة الصومالية دبي بشوفت. أدي وما حسنت هاي أدوقنا كلمة كوات كدوان هاي. أمرا أدي بكون سلام يا صاحب. أنا برتوا أنا فرحة إنه حوالي قوت هذا سفر سنعاوة بنمر التقاضي الصوماليين مركز تشوفنا على نهاية أدبنا سلام يا دمان. aad baa mahadsan tahay insha Allah barnaamijkeena ayaan guda galeynaa su'aasha koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo deeqo waxa jirtay barnaamij aad iyo aad la isula dhex marayay oo waxa weeye boqolkiiba boqol social media qabsaday oo ilaa heer gaaray saqiir iyo kabiir ilaa culimo ay ka hadashay waxaan rabaa inaan bal caawa aad meeshu ka bilowday sababta ku kaliftay waxyaabo badan baa ka soo noqday feedback badan baa ka soo laabtay marka bal inaad noo bilowdid oo noo sharaxdid sababta kugu kaliftay markii hadalkan uu ka iimaanay waxaad uga jeeday iyo de qaabkii oo faahfaahsan geedka halaysa okay ma sha Allah walaal horta barnaamijkaas runtii kulliga ana si baan way dadkana inta badan qaar bas loo fasirteen war wax iska caadi marka hore ma dareemay in la kala jiido hase ahaatee waxaan rabaa horta inaan taariikhda u saxo marka ugu horeysa taariikhda dambe ku baxay oo waxaan leeyahay runtii inaan duubay 2017 aniga waqtigaygu waan daaw 2017 laakiin wuxuu ahaa 2019 runtii haddaan halkaas in yar ka sii wado waxaa jirtay maalin anigoo safar ku imi ayaan gurigayga imi maalintii caadi ahayd أنا سيدي لايف أوه أيام هرت برنامج كان دوبي صوبت عم دوبي إن شاء الله قدر بكان شيء بدونا لكن برنامج كان فنتي إن أنا هرت مركورة تاريخ الصحة عن وبنا مهد عليه ضد بضان فنتي آد سوى نفس وأركي سوى نفس وأركي بدي كرا لكن ضدنا حكي لمركو قفكو وحدود تبعه يرخى ضمه dadna way kula tuuraan dadna way ku rasaxaan way ku celceliyaan marka hortii dadkii isaxay ama bahasha aan ila tuurin aad iyo aad baan uga celinaya runtii maalin jimcaha bay ahayd aan duubay 12kii bishii waxaan duubay 2019 waxa jirtay walaalo Imraano safar baan ku insan ku sheegay aqalkaygaan imi anigoo wallahi runtii waxaan muddo ka fikrayna oo ahaa ayaan horta barnaamijkaas soo duubay isla markaan duubay ilaahay amarkiis oo sidaa igu dhamaaday keligii baan ahaa gabar baa maray soo gasho iga baxday waxa dhacday in aan u diray wiilal anoo asxaab nahay oo runtii youtuber badan oo saaxiib lama ahin ma aad uma xidhiidhna laakiin dhalinyaro aan jeclahay qolada guurdoon ورنتي ضد مرة الباب بوزيتيفة نسيف في عنا سولا حدينا وليش مركب برنامج وقدر لها أمريكيس أنا وماشي دي أنا ولي كأن أي واحد عضي تليفون بقى وحي يقصر على لندن وإيش يدي إنك اسمعي قرح كده عيا ضد حتى أنا وأنا مدرسة إيه هاي
ay meesha ku dhintay runtii wiilasha aad baan markaa u qaracmay anoo runtii aad isaga murugaysan runtii waa barnaamijkii waxaan bilaaway oo tacsidaa ku murugaysan gabar walaashay marna in adeerta iyo dad badan oo meesha ku leeday maxaan ku hodanaa leeyahay iyo wiilka iyo haa dad anigu aan ehelayn runtii aad iyo aad anoo murugaysan ayaan wiilasha soo waceen oo la deeqay miyaa dardaaran dabka soo kuli war dhibaata waa dhacday bal dardaarankaasi meeshiisa ha ahaadee dhibaata nagu dhacday waxaan diiday wiilashayda barnaamijka aan u diray ay soo daayaan adigu dhowr cisho ayaan anoo maalin guriga u socda gaari saaran ayaa waxaan arkay sheekadii la wado oo aan ku arkay Facebook taas saasay ahayd runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyaro positiifa ama ha noqdeen dhinaca miidiyaha ama dhinac walba ha noqdeen qof walba oo si wanaagsan runtii uga falceliyay oo wax wanaagsanna runtii u arkay oo u arkay gabar walaashooda oo Soomaaliyeed oo xitaa hadday khaldan tahay aan sii tuurin ya xoogaa ma garanaysaa u hiliyay runtii aad iyo aad baad u mahadsantiin baan leeyahay waxaadna u heliseen gabar Soomaaliyeed walaashiina gabar muslimada 100% hadalku waa waxa weeyaan waa marba dhinac buu sheegaa waa hadba dhinac sidii loo fasirto hadda positive fasirated iyo hadda negative fasirated ba hadalladii runtii waxay u badnaayeen qarkay saarnaayeen oo in layla tuuro waxa weeyaan waxba uma jirin laakiin waxaan ogaaday Soomaalidu dad wanaagsan yihiin oo hashi dhinac fiican horta ay ka eegeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wallaahi asxaab badan oo runtii yiri deeqa caloosheeda dareemeen wallaahi waana dad wanaagsan aad iyo qof kasta oo comment ka soo baxay qof kasta oo wanaag u arkay aad iyo aad buu mahadcelinayaa meel walba joogaan haddaan sii wato runtii qaar badan oo waxaa jirta si khaldan iyo arkay oo waxay taa markaan idhi cimraan oo marka aan ka sheekeynay waxaan ku leeyahay diinta muslimka si fiican ma aqaano laakiin muhiimadeedu ma ahayn diinta muslimka si fiican ma aqaano waxay ahayd anu quraanka waan dhameeyay weliba very active baan markaa dhameynayay si waxay ahayd weliba qurux badan baan ku dhameeyay aniga wiil baa ku tartanay waxaan ku leeyahay afar aayadood iyo suurad baan qaadanay runtii afar bog baan qaadanay 6-7 xitaa waan gaaray marka runtii dugsiga horta dadkii la dhiganaya markhaatiga oo dadka active ah quraan xafidka badan baan ahaa xafidaadaas runtii waa mid aniga ay anfacdo heesaa xitaa daqad baan ku xafidaa oo hadii waxa la ii dhiibay meeshaas la iga dhiibay horaan ka xafidaa oo taas maasha allah taana waxaan ka leeyahay dee anigu diinta aqoontii aan ka sheekeynay waxay ahayd dee aqoon runtii 100% oo runtii aan noloshayda oo dhan dee kaga jawaabi karo ama kaga dabari karo unbaan ka waday dad baa jira daaciyiin oo dee shuyuuq oo maasha allah kuwaas horta unbaan ka rabay inay wax aan ka ogaado maahane diin la-aan ma haynin okay marka waxaad leedahay diinta waan aqaanay oo markii horaanba diinta aqaanay oo qof diin quraankii bartay baan ahay oo aad iyo aad u bartay laakiin waxaan ka rabay bal inaan wax ka siyaadsado laakiin dadku sida qaldan bay qaybtood u dhigeen oo tariyo ku weedaariyeen hadda marka maxaad oran kartaa waxa taagneed markii hore geed halay saaro markaan dhinto dad badan baa waxay yiraahdeen markii deeqo waxay ka cararaysaa qabriga hadii la geliyo waxa uu imaanaya munkar iyo nakiir baa waxay ugu imaanayaan qabriga oo su'aasha qabriga ayay ka cararaysaa ayaa dad yiraahdeen marka dadkaas maxaad ugu jawaabaysaa sidaa yiri walaal horta subxaanallah ma wanaagsan shirki in la galo arrimahaas ana shirkiga ku tilmaami karaa sababtoo ah munkar iyo nakiir meel walba walaal kugu imaanayaan banaan kugu imaadeen ama geed xidaa kugu imaadeen arrimahaas horta aan ugu fikiray sababta geedka iyo waxaa gadaal baan ka sheegay laakiin runtii dadkan sida khaldan u arkay oo runtii u arkay diin la'aan ama inaan ilaahay xitaa ma garanaysaa shirkiga u arkay waxaan leeyahay shirki kama wada ilaahayna caloosheedu u yahay hadda ka horna waxaan leeyahay barnaamijka hadda ka hor dubo waxaan leeyahay ilaahay qofkiisa loo kala turjumo marka waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay hadda ilaahay qofkiisa loo kala turjumo way dhici kartaa hadalkayga la fasiri karo waaba ka xumahayba oo waana kule eraya badan waxaa jirta qarka saarnaa oo tuurid kaliya u baahan laakiin dadka caqliga lahaa waxay dareemeen qofkan inuu yacni sidaas aanan u hadlaynin runtii maasha allah waan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrin kale oo aad jirtay oo dadka qaybtood u fasirteen oo ay yiraahdeen deeqo waali baa ku jirta ama waxaan waali baa u geystay taana maxaad kaga jawaabaysaa horta ibraano walaal
walaalo nin fanaanaa tahay maasha allah waxa weeyaan fanaaniintu ama bahab fanku stressba kuma dhaco anagaa daweyna waa sax saaxiibaya anagaa dadka daweyne anaga horta stress laguma dhaco alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa jirtay maalin nin iisoo qoray oo aan hadda doonaya diyaar u ahayn inaan magaciisa sheego qoladan waxa meelaha dadka ka maagmaagta markaas wuxuu iisoo qoray wuxuu ugu dhahay deeqa afray buu yidhi adoo waalan baad mardhow youtube meelahan kuga arki doonaa bay mogtahay buu iisoo qoray nin wax naga ximiraana ma qof aqaanana maaha laakiin waa qofaan meelaha ka ararkay markaasa waxaana qoray taayaaba waxaan walaalo maxaad ii waashay baan ku yidhi qof xayi ah qof waalan baaba la daweeyaa oo la gacan qabtaay maxaad anigiyo fiyo oo caafimaad qaba waalida iiga doontay marka horta dadkeenu waa dadka noocaas oo dadka xitaa caafimaadka qabay hawaalaya ya laakiin wallahi waxaan horta aad iyo aad rabaa inaan dadka bulshada u sheego arrin runtii wallahi mar walbana aan maskaxdeeda kusoo dhacdo oo ah sababta macnaha mar walba waxaa jirta page laga sameeyo oo wax laga soo qoro waxaan ka cudurdaaranayaa hadda ka horna waa il waxaan ka cudurdaaranayaa oo aan macnaha aan cudurdaar ma aha waxaan innaba aan ka gelgelinayaa in dadka speechada iga sameeya oo maxaan ku dhahto mar walba waxa qaladka iga sameeya inay iga daayaan dadkuna inay ogaadaan inaan anagu ahayn fanaaniinta oo dhan bayna taasoo runtii ay ma wayla qabaan wallahi fanaaniin badan marka anoo xitaa keligay isuma hadlayo fanaaniinta oo dhan baan hadlaya waxaan leeyahay fanaanka waxaan meesha laga wado magaciisa ku qoran ma aha aniga deeqa afro page iyo facebook toona malihi hadda kahorna waa sheegay waxaan leeyahay deeqa aadan musoo soo gaaban deeqa afro qofkii arka oo aniga hadal haya iga report gareeyaan leeyahay halaga xiro laakiin waxaad leedahay facebook page maligeeda waxaad leedahay facebook magaciisa la yiraahdo deeqo aadan muse deeqa aadan muse facebook ayaan leeyahay hadda ka hor beentu waa xaaraan waxaa jirta wiil page ii sameeyey pagekaas sanad wax lama soo geliyo pagena ma ahayn dhowr cisho unbaan wax geliyey meesha ma kuga ekaado marka aniga wax page oo deeqa afraa haddii la arko hala report gareeyaan leeyahay yaan la ii qaban waxaa meelaha xataa dad baa siyaasadda gala dad baa fanaaniinta caaya maanta gabar fanaanada waxay ugu tiri page adiga ah deeqa afra laga caayay oo aniga gabar baa laga caayay gabar fanaanada runtii waan ka xumaa iyadu way weydin aniga ahayn laakiin waxay ugu tiri waa ogeynaa adiga hayne dadka u sheeg waxaad ku tiraahdaa qaladka macnaha iga xiraanay marka taasaan ka leeyahay waxaan leeyahay please dadka social media magaca dadka ku adeegsada walaalayaal wadada si wanaagsan ugu adeegsaneen at least heesaha iga soo saara at least haddii taas ka fursadana faraha iga qaado magacaygana ii daayo waxaan ka codsanaynaa anaguna bulshada soomaaliyeed waad wada arkaysaan deeqa afro walaashan way ka hadashay wayna ka cabanaysaa waxaana aragnaa fanaaniin badan oo ka cabanaya ilaa heer xasan aadan samatar aan habeen dhawey daawanayay isagoo leh anigu malihi marka fanaaniin badan baa jira oo bejij laga samaysto oo saas way dhacdaa waxaan leenahay deeqa afro waxay leedahay deeqo aadan muuse oo soo gaaban oo facebook ah wax bage ana male bage hadda ka hor wiil u sameeyey oo waa horaaca waxayna tiri ilaa sanad baa ugu dambaysa wax la soo geliyo markii horena wax badan lama soo geliyo deeqo walaal waxaan rabaa marka taas haddaan facebook halkaa uga gudubno waxaan rabaa inaan su-aasha ku weydiiyo sababta kugu kaliftay inaad tiraahdid geed halay saaro bal waxaan rabaa sababta inaad macnaha dadka ka qancisid iyadana صح waa sax walaalo sababta waxaa jirtay codka adoo yaro kor u qaad qof horta qofku waxa weeyaan qofba dadba si u fakeraan horta waxaan aniga hadda ku fakeray maaha laakiin wax muddo ku fakeray weeye mar walba xitaa dadka waxaan jiray waxaan xaaladna laakiin anyway adigu waxay doontaa iska ahaato ama ma garanaysaa qodobka runta ah oo diinta yani sii fahmin ha noqoto dhinac walbaba laakiin waxaa dhacday oo aniga hadda arrintan igu sababtay ama igu koosgaraysay inaan duubo miidiyaha la soo fariisto waxay ahayd imraano maalmaha kamid a anoo meel wadankan ka baxay meel kale aaday diyaarad baan ka saarnaa diyaaradii aan saarnaa ayaa waxaa dhacday waxaan markaan xoogaa sii soconay waxaa naloo sheegay inaan ay diyaaraddu aysan safe ahayn macna cilad jirto oo aan dib u noqonayno adigu meeshii wadanka aan kasoo duulna dibna loo ku ceshay cabsidii horta maalintaas horta waxaan go-aansaday haddaan ilaahay i badbaadiyo inaan arrintaa horta ka hadlo oo aan ka dardaarmo
isla markiiba runtii markaan gurigayga imid ayaan anoodo sida u daalan ayaan horta duuba tan labaad waxa weeyaan horta waxa ilaa wanaga kulilaa yaraanteeda igu jirtay waxaa kasii horeeyay tan oo runtii adigu muddo dhowr bilood laga jooga ah waxaa jirtay wiilan aan asxaab nahay maamadood ayaa dhimatay maamadii markay dhimatay baan anigu weligay dadka qabuuraha dadka u raacabaahay meelahaas weligay ma raacin dadka waxaana emotionka ah dadka waxaana dhibaatada badan iyo maanta xataa qof ooyaya haddaan arko horaan kaga daraa ma faham waad u raacaysaa qof ooyada horaad uga raacaysaa marka adigu maamadiiba wiil dhalinyarta asxaabta ahayn baan maamadoodii meesha u raacay subaxda meesha baan tagnay waxaa dhacday horta waa markii ugu horreysay horta aan arko meel dadka lagu aaso weliga horta qof dhintayna uma soo dul istaagin alxamdulilah marka waan eegay sida wuxu dhaceen gurigaygaan orod ku imid combyuutarkaygaan furay wax allaale wixii hees meesha igu jiraan dileed gareeyay heesaha ilaa hadda inti badan ma hayo waan wada tuuray waxaan soo download garaystay wax badan oo garanaysaa diinta ah waxaan dareemaya xoogaa inaan magaranaysaa qofkuna markuu fan ku jiro xoogaa cabsi baa iskaga jirta wuxuu leeyahay waa tanaalaxad marka dib noqoshadiiba horta iga ahayd runtii oo runtii aan feeling ah runtii aan dareemay iman dee xoogaa yara khaldanahay anigu mideeda kale dad badanoo waxaa dhahda jira yiri dambi bay gasha horta dambi bilaa dambi lama ahan laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin anigu noloshaydana maxaan korta qof bini aadana dhibaato uma geysan weligii hal karoon qof kama xadin kamana inkirin caawa haddaan dhintana hal karoon oo deyna legumale alxamdulilah marka noloshaydana macnaha waxaan ahaa waxaan ahay dadka xataa ma dhihi karo bilaa dambi baan ahay laakiin xataa dadka dhibta badan maayo dadka xanta oo dadka magaranaysa aadkata u xantaan dhibaateeyaan oo qofka dhible uma geli karo anigu xoogaa waxaa laga yaaba xanta inaa isaga yara kafkaftamo laakiin wallahi dadka aada uma xanta marka horta dad badan baa iga dambi badan dambiga keliya aan ku jiraa waxa weeyaan dee aniga ilaahay midaan kala galna weeyaane wax horta aan dadka kaga dambi badnahay ma jirin dareenkayguna runtii wuxuu aad aan ugu fikrayay waxay ahayd arrintan bal sababta aan ka dardaarno ay tahay waxaana la oran karaa inay ugu weyneyd oo kugu kaliftay markaad aragtay meesha laysgelinayo qaabkii maamada aada raacday wiilasha aad asxaabta tihiin hooyadood oo dhimatay oo aada raacday markaad qabrigii aragtay horeyna aadan u arki jirin baqdintii aad dareentay ayaa kugu kaliftay oo aad hadalkan u tiri taas horta waan dhihi karaa laakiin way xoojisay taasu maadaama yaraanteeda aan arrintaas aan markastaba ka fikri jiray oo xataa nolosheeda oo dhan asxaabteeda way wada ogyihiin waxaan mar walba iska dhigi jiray waxaan jiray allah aniga qabriga maxaa muddada kale waxaway walaalo qabrigu macaaniya biyaa yaala yaa meesha xisaabbaa taaba yaa it's not easy فانت تطبع حتى واحد أركي يسوي قرية أو أنا ورا فرحسنا هيدا وقفك وفرحسنا كلا ورا بدون بنشوفنا لكن هذا نقفك دو قبل كشكل ده قفك ما إنه وارين ده قفك ما إنه حمسية ده قفك ما إنه ستريس هيصير فانت وحن إيه قفك مركب فكري له ويرق شوي تاسع نفتعني بيجا هاي الحمد لله رب العالمين ستريسنا يا ما هيو بتكعدي أي واحد سوستان إلهي مركي ستريس وهاي أما لبعضها هيصطو أنا وعافمات قبل الحمد لله رب العالمين تاسنا وح أنا ودر دارن كي قام مستحيل كيني هاد صوبت مخلفتنا إن وح إلا يرانتي دي حدنا أنا ما هنكلا ويحوشين aad baa u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa dee dhammaan dadka ku daawanaya bulshada Soomaaliyeed inay kaaga qanci doonto hadda sida iiga ka muuqata 99% waxan cabsi alle ayaa kugu kaliftayba sida hadda la oran karo aad noo sheegaysid maadaama xataa heesahaagii iyo waxaagii inuu isla ognahay dee heesaha kuu duuban oo meesha kuugu jiray inay wax adag yihiin qofku inuu dhilaydo waxa ka dhilaydina ay tahay maaragtay cabsi ilaahay aynu oran karno marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inay bulshada Soomaaliyeed ka qanci doonto oo barnaamijkaas ay sidaa kaga dawoodi doonto waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed qof markaad aragtaan awal bay Soomaalidu hore uga mahmahday
qof caloosha kasoo jeeda haddaad aragtaan bal ilaa aad aragtid kii kale oo macnaha uu ku yidhi caloosha iga soo ridin ilaa aad aragtid ha xukminin ma fahmaysaa sababto ah kaas inuu dhintay baa laga yaabaa sidaa daraaddeed bal waxay ahayd in lagaa sugo dad badan baa si fiican yeelay sida aan arkaynay adiguna aad qiraysid oo si dhexdhexaada uga hadlay marka barnaamijkan waxa weeye aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay haddana waxaan usii gudagelaynaa insha allahu tacaala barnaamijkeenii heesahaagian aynu usii gudagelaynaa